ma doonaysaa in shaydaanku xumaha kaa celiyo wanaagana uu ku furo ibliis baa oranaya dambiga iska ilaali ya khayrkana samee salaada dirilow been baas kugu sheekaysay war been maahe anaa sirta ku haye adigu bal horta soo dhawow ku soo dhawow dirir media floodi iyo loofta iyo sheertana hayga ilaawi qisa waxaa jirtay nin culimadii hore ka mid ah ayaa sida culimada maanta joogtay problem baa loo keeni jiray dadka u imaanaya sheekh dhibkaas ay haysta sheekh ana dhibkaas ay haysta maxaan sameeyaa sheekh tala arkayga sheekhan maba isdhibaba qof kasta u yimaada laba ragcadood buu qorayo sunnah yiraahdo laba ragcadood sunnah tuko sheekh arsaaqada igu adkaatay xaaladda laba ragcadood sunnah tukan sheekh reerka dhib iga haystaayo siban laba ragcadood sunnah tuko sheekh anigu laba ragcadood maalinta baan noo yimi wuxuu yiri sheekh anigu dambigii baan iskaga taag waayay waa ku dhacay anoo ku dhex jiraan arka sida intaan u badannahay badeen markaas wuxuu yiri sheekhi markasto aad dambi gasho laba ragcadood sunnadku dambiga haddaad gasho laba ragcadood sunnadku dambi haddaad gasho wuu iska tagay wuu bilaabay dambiga kolkuu galaba laba ragcadood sunnah wuu ku dhacaa laba ragcadood sunnah ilaa markii dambe shaydaankii baa khadiyaan istaagay dee salaad buu nafta kaga qabtay maalin dambe bixis anoo meel fadhiyo buu yiri ayaan xagga dambe waxaan ka maqlay gabar soo socota kabaheedu qub waa kuwa sharqabaan gabdhuhu moogta kabahooda niman kabahooda sharqabay mid weliga aragta ninkan dadkan kabahan sameeyo gabadh codkan waxaa loogu sameeyey kabaha waa de waa isoo eeg maxaan kaa eegin adigii baa qubtaa guraye so waa halkan gabar baa maraysay soo eeg wey micnaheedu kadibna eeg baan isri buu yiri sharqantii markaa maqlay kabihii gabadha eeg baan isri mise shaydaan baa ila hadlaya ha eegin bela ku eegtay bilay iga celinaya heer waxaan istaagay buu yiri dambiga markaan israada sameeyba shaydaan baa iga hortaagan ara sameyn buu ku leeyahay bela ku sameysay warada ma garatay waayo de mo qofku laba ragcadood tukado qalbigiisu wuu dhismayaa ajar badan buu helayaa oo tii xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaas aad xuma sameyso wanaag ka dambeysay way tirtiraysaa ma garanaysaa kadibna waa qiso aad u fudud dad aad u tiro badan ayaa haddaad internetka gasho aad ku arkaysaa qisooyinka qisada intay sameeyeen ku guuleystay marka way fududahay inteena badan dambi umaynu ku imtixaamanahay bal qisadaa tijaabi qiso kale cajiiba nin baa qisadaa dhageystay ninkan marka khadiyaan wuxuu ka taagnaa salaada subax wuu ka seexanu barqadii baan soo kacay habeen kasta salaada subax u kac barqadii baan hurdaaba habeenka dambe wuu yiri nadar baan galay markaan seexanay wuu yiri wallahi oo billahi oo tallahi haddaan salaada subax biri subax ka seexdo 200 oo ragcadood salaad sunnah baan tukanaya waan seexday buu yiri salaadii subax markii ku aadanay shaydaan baa itoosinaya warka buu leeyahay waxba itoosinay waan soo kacay mise salaadii bay ku taagantay su'aal isweydii maxay tahay sababta uu shaydaan u kicinaya ninka kan oo salaada ugu toosinaya marka hore ma kicin jirin ama si kala dad fiiriso laba ragcadood oo salaado waajib ah salaada subax iyo 200 oo ragcadood oo sunnah ka ajar badan labada ragcadood ee waajibka waa waajiba laakiin ninka shaydaan leeyahay halka kama fiirinayo wuxuu ugu kicinay marka tanaaba khayr badane wuxuu ugu kicinaya halka ka fiirin maayo ninka shaydaan la yiraahdo ibliis waa nin khabiir ah ka war ninka la yiraahdo shaqada ninka la yiraahdo ninkan hal sano shaqada ka shaqeynay ninkana 10 sano ka shaqeynay isku khibrad bay noqonayaan maya ka war ninka shaqadan 4 sano ka shaqeynay iyo ninka 40 sano ka shaqeynay isku khibrad bay no ninkani billions bu shaqadan ka shaqeynay sanado bu shaqadan ka shaqeynay ilaa maalintii adogeeday maxaan ku raahdaay uu diiday uu gaaloobay oo sujuudi aabaheen uu diiday ilaa maalintaas ka shaqeynay shaqadan سو خبير بوكيا يسوي هالكا كمان فكرين إنك شيطان ليه وحو كفكريا تنين لما بقول أورق على السنات كذي تربية إنتين لإك يتوابر إنتين لإك بنيكن هيليا تقلن كورس دم بنيكن كقلن شبيه تك بنيكن ملار نك لما بقول أورق على السنات كذي ما أنت ما مية دبي سايم الله على الأوقع صلاة الصبح مية دبي سا ما يا نكن كورس دم بو بكسو قلن شبيه وسوق قلن شبيه سو نكن شيطان وحو كفكريا تربية انتا لك iyo tababarka inta leeg iyo iimaanka inta leeg u kordhay intuu ninkani qaadan lahaa
waxaa dhaanta labada ragcadood faralka u kici soo tan oo kale tusaale waad samayn kartaa iyada qudheeda oo hadda waxaad dhib ku qabtay laakiin bal qisada hore ta horaa fudude bilaan tijaabino halkani waa Dareer Media soo